السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ولا مسلمين تعمل كستو الدنيا أتك جوكتان وحن دين رجينا يا عافمات يا عمر الدار يا عبادة السن أو تكوارتان. أنت كذب حن إذا لو ذاك يا إن شاء الله تعالى برنامج كانوا حكم دي هاي برنامج دي عن هراء أوجه اللي تشري عذر هذا نفساني جاء سيدا السحر كإيش إيو شنكا قيبت المركة عن أوجه الله إيو برنامج كانوا حويان وحلو يقانا سحر العقم سحر كدشة حرح وهوين يدو إننا وحدلين سيدا كله نكونا إنه صو وحدلين لوجو تلقلي لوجو حرو سحر كاس إيه علامة هيسة إيو سيدا اللو داويو أيان إن شاء الله تعالى إذن لو ذاقيا أولا وقبل كل شيء إلهي سبحانه وتعالى إذن كيسا أي وحو البكو دعان عذر كاسنا وحكم دي هاي عذر رضا انت بدن دمرك وبدن سامين وين كويشو oo qaarkood sababo in laga bixiyo minki dhiig u furmo dhiig joogsan waayo isla markaasna dhibaato kala kulmo minki kala kulmo ilaa marka dambe la yiraahdo minkaaga dhan waa la bixinaya marka ciladaas aad bay ugu badan tahay bulshada dhaxdeeda sixirka noocaas oo kala ah aad buu ugu badan yahay calaamadihiisa waxa kamid ah haweenaydu waxa xanuunaya wareega minka uu xanuunaya isla markaasna waxay yeelanaysaa dhiig furan dhabarka xanuunayo xilliga caadada waxa weeyaan waqti badan ayay ku soconaysaa kamid ah haweenaydu inaysan helin si sax ah caadada aysan u helin oo caadada ay ka wareerto ama ay ka istaagto ama dhiig badan uu socdo isla markaasi caga olol iyo kuleyl fara badan uu ku shidmo sidoo kale sixir aqamka wuxuu keenayaa xagga gogasha ayuu cilad ka keenayaa ninka iyo xaaskiisa waxa imaanaya problem baa imaanaya xagga gogasha ku saabsan waxay dareemayaan labadaba xilliyada ay isu baahan yihiin waxay dareemayaan caajis fara badan bay dareemayaan kuleyl fara badan bay dareemayaan haddii midka kale jirkiisa uu taabto waa uu kululaanaya waa uu dhibsanaya yaani waxa uu karaahsanaya uu karaahsanaya midka kale ayuu karaahsanaya haddii halkaasi uu jamaac ka dhacana 3 marxaladood ayay maraysaa sixirkaas marka inta badan waxa loo xilsaaraa oo sixiroolayaashu ay u soo dhiibaan ay u xilsaaraan waxa loo yaqaan oo musiibiyanta loo bixiyo magacaas waxay u xilsaartaan oo ay oga dhigaan wakiil u ah oo xaaris sixir ay oga dhigaan inta badan habarta jin ee loo yaqaano oo musiibiyaantaasi inta badan waxay u adeegsadaan sixiroolayaasha kala geynta iyo sixir aqamka iyo ilmaha yaryarka ay dhibaatayso ayaa loo adeegsadaa inta badan calaamadaha waxa kamid ah xilliga ninka uu maqan yahay oo reerkii uu ka maqan yahay labadii qof way isu xiisayaan ninkina reerkiisu u soo xiisaya haweeneydina ninkeedii bay u xiisaysaa sida caadiga ahayd markii la soo yimaadana ninka wuxuu dareemayaa naxdin iyo cabsi sida awgeed hawshii loogu talagalay ma uu qabsanayo ciladaas marka ninka xaqiisana way ka imaan kartaa haweeneyda xageedana way ka imaan kartaa ninka waxa xanuuno dhinaca bidix xaninta dhanka bidix ayaa xanuunaysa wareegana sidoo kale uu xanuunaya dhabar xanuun zaidana wuu yeelanayaa ninka sixirka noocaas oo kala qabo haweeneyduna sidoo kale ayaduna waxa xanuunaysa dhabarka wareega lugaha madax xanuun fara badan bay yeelanaysaa waxa ku furmayo walwal iyo murugo fara badan oo meel ay uga imaaday aysan garanaynin xagga dhaqaalaha saameyn bay kaga yeelanaysaa oo dhaqaalaha haduu soo galo meel ay ku bixisay ma garanayso ayadoo u baahan wixii muhiimka ahana aan ka qabsanin ayay xoolihii dhaafayaan ninkuna sidoo kale haddii ciladaas asaguna ay ku dhacdo waxaad arkaysaa ninkii oo meel cidla taagan war aaway xoolihii iyo hantidii shalay aad haysatay aaway meel kuma sheegayo ma aqaanu leeyahay wax ku dhacay way dhaafayaan waa sixirka ugu khatarta badan oo waayahan dambe bulshada inta badan aanu ka daaweyno kamid yahay ilaahay baa wax daaweeya laakiin asbaab badan iyo juhdi badan lagu bixiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aalana dad badan ku caafiyay ayuu kamid yahay sixirkaas aad buu u soo noqnoqdaa
bulshadana aad bay uga cawataa sixirkaasi. taas weeye marka sababta aan mar walba uga hadlayno dhibaatada uu leeyahay sixirkaas iyo qaabka wanaagsan ee lagu daaweyn karo. haddaba aan u imaana marka faahfaahintaas kooban ee calaamadaha lagu garto haddii aynu ka imaano oon u imaano balse waxaan loo daaweyn karaa see loola tacaali karaa. fariimahan insha allahu tacaala mar walbo way idin imaan doonaan hadduu ilaah yiraahdo waan idin la wadaagi doonaa. qaabka ugu wanaagsan oo lagu cilaajiyo lagu daaweeyo waxa weeyaan qoyskaasi si jamac ah in loo cilaajiyo, ninka iyo xaaskiisa in la isla cilaajiyo fi laxda waaxida, hal waqti la iskula bilaabo cilaajintii. daawadan oo kale inay isticmaalaan, daawadan saliidan inay isticmaalaan, tanna korka ay mariyaan habeenka markay seexanayaan, midana ay isticmaalaan sidii u isticmaalan la yiraahdo ay u isticmaalaan. quraankana inta lagu soo bilaabo lagu dhameeyo, quraankana inta lagu bilaabo asagoo jahar ah, ma ahan inta hal mar wadaado loo kulmiyo hal mar quraanka oo dhan lagu dhameeyo. systemkaasi waxaa ka sii awliyeysan quraankoo jahar ah by day in qayb lagu akhriyo, sidaa loogu dhameeyo quraankii. markii lagu dhameeyo aayadihii quraanka ahaana ee goosgooska ahaana adkaarti lagu akhriyo muddo 3 usbuuc ah. haddii xanuunka uu sii daran yahay bil, haddii xanuunka mar dhow uu asiibo oo waraysiga uu ka soo dhaxbaxo ciladani in ay cilad kooban ay tahay oo waqti dhow ay isku arkeen, usbuuc baa ku filan, 2 usbuuc baa ku filan ilaahay idinkiisa. hal maalin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu uga caafin karaa. qofka waxaa loo baahan yahay xanuunkan inuu ogaado xanuunkan inuu jiro, qaabka ugu wanaagsan oo la isku daaweyn karaan inuu qaabka yahay. qaabka ugu wanaagsan oo la isku daaweyn karo waxa weeyaan in si shakhsi ah lagu cilaajiyo, in si qoys ahaana lagu cilaajiyo. laakiin haddaad 100 qof dhex gasho oo 100 qof aad dhexda u fariisato, inta badan waxaa laga yaabaa waxa kugu jiraba inaysan hadlin oo meelahaas oo kale aysan ku dhex hadlin. waa waxyaabaha aan aragnay intii muddadii 20 sanado barnaamijkan aan ku dhex jiray, tajribooyinka iyo researchka aan sameeyay kamid ah waxaaba jiraba qaar aanan sirtooda iyo meelahaas farada badan aan ku dhex hadli karin. qofka qaabka dabeecadiisa ay tahay buu saameyn ugu yeelanayaa. qof waxaa jiro sirtiisa aan la heli karin, sida awgeed haddii xanuunkii uu saameyn ku yeesho maanta dhan haddaad quraan ku akhrinaysid waxaa laga yaabaa in uusan wixii ayna hadlin sirtooda iyo afaarahoodana aanan la helin, laakiin saad quraanka ugu wado ay iska baxaan ayagoona hadlin inay iska baxaan. kuwana waxa weeyaan markiiba ay iska qayliyaan oo dee dabeecadaada ayay ku xirantay sida dabeecadaada ay tahay. idan marka insha allahu tacaala wixii fariimo ku saabsan noocaas oo kale ah waad nala soo wadaagi kartaan, lambarkanagana halkaas uu ku qoran yahay. wixii insha allahu tacaala information oo dheeri ah waan idin soo wadaagaynaa. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشوي بشارو warheede waa maxay bishaaradu? soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo mid cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo. ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd, maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo? waa adiga 100 qof igu dhex daray.